waxaan halkan isugu nimid in aan bogaadino shirkii walaalaheen Galdogob ay ku qabteen magaalada degmada Galdogob oo nabadda iyo heshiisiinta dadka walaalaha ah ay ugu baaqeen. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fattaqullaha wa aslihu dhaata baynikum. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka absada oo waxa inay dhaxeeya hagaajiya oo ma taqaanaa heshiisiya dadka walaalihiina. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayad kale ku leeyahay la khayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Dadka shirarka ay qabsadaan iyo shawrkoodu khayr badan kuma jiro intooda badan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala saddex shir buu ka soo reebay. Shir dadka sadaqo lagu aruuriyo wax lagu siinayo masaakiinta ama wanaag iyo biri guud looga hadlayo ama dad walaalaha lagu heshiisinayo. shirkaas walaalaheen ay ku baaqeen Galdogob arintaas ma taqaanaa tilmaamaya waxa rabaa marka dadka walaalaha haday isku dhacaan in la heshiisiyo wa in daa'ifatan min almu'miniina iqtatalu fa aslihu bayna akhawaykum. Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii laba kooxood oo muslimiina oo mu'miniin ay isku dhacaan walaalihiin heshiisiya ayagoo isku dhacay oo isdibay oo ma taqaanaa isdilay ba hadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay dadka walaalihiin heshiisiya hadii ay midkood heshiiska diidana la dagaalama taas diiday heshiiska ilaa ay Ilaahay kitaabkiisa u soo noqoto markaas nasiima taqaana cadaalada u heshiisiyo waxaan rabaa marka dad muslimiina maadaama nahay dhalinyaradii maadaama nahay in waxaan rabaa marka baaqaas walaalaheen la ajiibo oo laga qayb galo halkaan waxaan rabnaa inaan ka ajiibno waxa baaqi ay jeediyeen walaalaheen reer Galdogob oo ahaa nabadda mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku bogaadinaynaa siday u garteen annaguna dadka mar labaad iyo mar saddexaad sidoo kale waxaan u sheegaynaa in ay baaqaas sida walaalahood ay ugu jeediyeen ay u qaataanin eeshaan wixii ka dhacay waxaan rabnaa inaysan wax damba ka dhicin deegaanka dad badan baa jooga soo guurta jidha abaaraha ka jira waxyaalo badan oo mashaakilaad hadda ka dhex jira marka waxaan u baahanahay intaas oo mashaakilaad jidha in la fududeeyo ka dawladda Puntland dadka isimada culimada dadka hawlahan oo garanaysa khayrka horay uga shaqayn jiray in ay horay ugu istaagaan inay dayicii hore oo dhacay iyo wixii mashaakilaadka ay badnaayo dhacay inaysan dib u soo laaban insha Allah waxaan rajaynaynaa inay baaqa dhankooda ka qaataan siiba dawladda waxaan leenahay wadanka adinka maamulka ah adinka dawladka ah adinka waxa way ciidan iyo magaranaysa calafba dadku idin ka sugahaya marka dadka hadaysan nabadda iyo magaranaysa aysan wax ka adkayn hadda wixii markay abnigu faraha ka baxo ama gacanta ka baxo waxba kama ay qaban karaan inta shacabku la taagan yahay inta shacabku hayo waxa weeyaan geestiisa waxaan ugu baaqi lahaa dawladdu inay doorkeeda qaadato dadka culimada ah oo indhaargaradka sidoo kale waxaan rabnaa iyaguna inay qaybtooda qaataan waxaan u istaagay anoo kaliya ismada Puntland waxaan rabaa wax yar aan la hadlo ismada Puntland khayr Allah siiyo hawlahan oo kala marka ay dhacaan iyaga wax ka qaban jiray hadda meesha aan waan joogno wax ka dhaceen isma waa joogan waxa hadda lagu kala deganaa ballantoodii iyo xilligii ay qabteen bay hadda xaaladu ku kala deganeed ismada kalena waxaan rabnaa inay u yimaadaan oo culays la saaraan oo la adkeeyaan oo wanaag ay kala shaqeeyaan dawladda Puntland waa dawladayadii laamiga kaliya waxaad moodaa dawladdu inay xukunto oo ay halkaas naga madhaa hawlaha meeshaan ka dhaca uma dhaga fududa waxaan rabnaa dawladdu culays inay soo saarto ka qayb qaadato timaado amniga ismada iyo waxgaradka ay kala shaqeyso ismada waxaan ku celinayaa ismadow hawshan soo farageliya hadda yeelsanina ha fududeysanina kuwa awal ka shaqeeyay kuwa kala ku soo dara la cusleeya wasalaam wax yar ma raba inaan ku daro sidoo u sheegeen khiyaartii ugu horeysay waxaan rabnaa xoojinaynaa u baahanahay waa nabadda inaga ku nool iyada naguma noola deegaanka waxa ka jira xaalad adag oo u baahan in wax laga qabto waxaan bogaadinaynaa walaalaha reer Galdogob siday ugu istaageen gobasha nabadda u dhigeen ay u soo dhaweeyeen in ay hawshaas si qurux badan ay ku dhamaato waxaan rajaynaynaa sidoo kale inaan u istaagno cid kasto ay khusayso dawlad odayaal dhaqan isimo xagarad ganacsato dhalinyaro hooyooyin
bulshada inteeda kale qof kasta inuu nabadda ka qayb qaato sidii loo dejin lahaa xaaladda jirta dhacdooyinka ugu dambeeya degmada ka dhacay sidii loo soo afjari lahaa waxaan si qoto dheer oo aragti fog aan uga hadlaynaa inaan ahayn wax sahlan in maalin walba kan inoogu qaalisan uu horteena qof kale uu ku dilo in mar walba aynu haddana gacmaha ka laabanno oo aynan qaban qofka dhibka wada ma rumaysan karno mana qaadan karno mana suurtagal noomana cuntami karto in wiil qurux badan oo walaalkeen oo ganacsada oo aqoon-yahan oo wax bartay in wiil jiri ah loo soo adeegsado oo ku dilo haddana inana ay fiirsano ayna daalimka soo qabanin inagoo mar walba madluumka dulminayna haddaba waa in loo istaaga arrinta dadku waa inay sharciga islaamka dib ugu laabtaan ilaahayna ka baqaan kagana xishoodaan bulshadana ay ku ixtiraamaan inay maalin walba birimageeda ay ku laayaan guryaha dhexdooda wax la qaadan kara maahan baaqa nabadeed ee walaalahayn waan soo saarnay waxaan rabnaa insha Allah waxaan danaynaynaa oo mas'uuliyad caama iyo mid khaas ay noo tahay wali aan saaraynaa inay mar walba hore aan uga socono meesha aan joogno oo nabadda aynu ka shaqeyno nabaddu mar walba iyada furaheena ah haddaan nabad la helin ma suurtagelayso in meesha sida loo ganacsado la shaqeysto wax la barto la cibaadeysto hore loo socdo haddaba degmadana waxay caanka ku ahay nabadiina waxaan moodaa inay faraha ka sii baxayso sidoo kale waxaan baaq u dirayaa dadweynaha reer Busaalax cid kasta oo nabadda jeceli inay ka qayb qaato sidii loo soo afjari lahaa culayska meesha degmada ka jira waxaan baaq labaad u dirayaa dadka walaalaha ah ee iyaga laftoodu soo korodhay culayskoodu oo maalmahan aan maqlayna xaaladooda inay sidoo kale ay qoriga dhigaan qalin ku bedelaan wada hadalna ku bedelaan nabadna ku soo fariistaan walaalaheena kale ee jambiga kale waxaan rajaynaynaa inay nabad mar walba ay nala qaataan haddaba si hadtaas loo helo waxaa muhiim ah in mar walba aynu u istaagno gacmahana iska qabanno cid allaale iyo cid nabadda ka hor imaanaysa inaan gacan bira ku qabanno bulshadeennuna ay noqoto bulshad nadiif ka ah xumaanta iyo waxyaabaha dhibka keenaya soo noqnoqonaya sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam hadalkii hore loo yiri waxaan salaamahayaa shirka dhalinyarada aqoon-yahanka oo degmada Busaalax oo maanta ay taariikhdu tahay 5 bishii 6 2022 ee isugu yimid howlkan ayagoo ka jawaabahaya baaqna ka daba dirahaya baaqii waxgaradka oqaasha culamaa diinka ganacsatada iyo aqoon-yahanka degmada Galdogob waxaan bogaadinaynaa soona dhaweynaynaa baaqii nabadeed ay ku baaqeen culimada aqoon-yahanka waxgaradka kale ganacsatada iyo dhalinyarada degmada Galdogob sidoo kale waxaan ajiibaynaa kana codsanaynaa inay ajiibaan darafyada kale oo ay khusayso gogoshii nabadda oo ay dhigeen reer Galdogob waxaan baaq nabadeed u jeedinaynaa dhammaan isimada waxgaradka kala duwan iyo dawladda Puntland oo ay u horeyso maamulka degmada Busaalax kan gobolka Mudug wasaaradaha ay khusayso maadaama arrintu arrin amni tahay inay soo ajiibaan gogosha nabadda ee degmada Galdogob la dhigay iyo baaqa ay soo saareen oqaasha iyo waxgaradka iyo culimada degmada Galdogob waxaan boorinaynaa in ay doorkeeda qaadato dawladda Puntland maadaama arrintani ay tahay arrin amni mudana ay soo jiitamaysay gabagabo cid kastoo ay khusayso hawshan sida isimada culamaa diinka ganacsatada aqoon-yahanka haweenka iyo dhalinyarada labada degmo ee Busaalax iyo Galdogob iyo ciddii kale oo gogoshaas nabadeed loo dhigayba in ay juhdi badan galiyaan kuna dadaalaan sidii gogoshaas loo ajiibi lahaa looga hawlgali lahaa waqtigeedina ay u dhici lahayd si aysan u dhicin dayacyadii hore u dhacay oo kale inta waxaan ku daraynaa hadraawi baa waxa laga sheegay laba tudcood oo aad u kooban oo ka hadlayay nabadda iyo colaadda tudcu wuxuu ku yiri sow nabadi sahaydaada oo sidato un maaha tudcu kaleetana wuxuu ku yiri sow godobi surinkaad martaba sabab qarsoon maaha arrintaas waxaan leenahay dadka caa'ilada ah oo hadda shilalkan intay socdeen labada darafba ay wax ka dhinteen laba talo aad heli doontaan labada talo aad heli doontaan qolo waxay idinku wula talinaysaa dad laaya oo aarsada hadii kale waad gumoobaysaan
qolana waxay idinkula talinaysaa dadkii ina ka dhintay waa ina ka wada dhinteen dad aan jecelnahay bay ahaayeen in dad kale oo aan wax qabin la laayana aakhirana cadaab iyo naarba inoo ku sugan oo waciid adag baa ku soo arooray adduunkana nolol ciriiri ah iyo dekano iyo dhib baynu ku noolaanaynaa shidadaasuna shida joogto ah bay noqonaysaa sidaas darteed labadaa talo oo midna ay tahay haddiinaan aarsan oo aynaan dadlaynin aan xaq qabin ilankii xaqa qabay hadda lama hayo carariye dad aan xaq qabin haddiinaan layn waad gumoobaysaan waa in dad la laayo taladaasu waa talo shaydaan waa talo aan khayr lahayn waxaan aad iyo aad carabka ugu adkaynaynaa inaan taladaas la qaadan waxaan soo jeedinaynaa oo codsanaynaa in la qaato talada ah samirka diintuna aad bay uga hadashay soomaaliduna waxay tidhi samraabaa sadxela arrintaas waxaan aad u boorinaynaa inaan talada waxunsheega ah la qaadan oo dadkii wax gaareen wixii dhacay waa dhaceen dhib baa dhacday taladu hadday hadda sii xumaato misana cidna waxtar uma lahan arrintaasaan anagu ku baaqaynaa carabka ku adkaynaynaa gogashaas in la ajiibo baaqaas aan akhrinay oo soo jeedinay la qaato annaguna xagga iyaga waa dadaalaynaa asalaamu calaykum